bulshada rayidka ah dhammaantii waa inay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudan ra'iisul wasaare waxaan kaaga mahadcelinayaa shirkan abaabulkiisa oo gurmadka abaaraha ah iyo in la soo jeediyo dareenka bulshada laguna soo jeediyo in dadka loo gurmado xilligan adag ee abaaraha ay jiraan. runtii waa dadaal weyn. sidaa la socotaan abaaruhu iyo biyo baxadaba waa laba arrin oo aan beelaha u nahay bulshada Soomaaliyeed ay beelaha u tahay, marna inaan biyo baxo iyo ka barakacno, marna inaan abaar iyo aafal abaar ka timid ayna qabsato. labadaba midna waxay u baahan tahay waa asalka mushkilada oo dal Soomaali oo kaleeta ah oo khayraadka Ilaahay siiyey, hadday tahay dhinaca webiyada, hadday tahay badda, hadday tahay macdanta iyo khayraadka ku jira, inaan sanad walba marna barakacno oo ka barakacno biyo baxo, marna aan ka barakacno abaar. runtii waa asalka mushkilada in la isla fiiriyo u baahan. waxna waxa ka dhasho oo la tacaalayno maalin walba oo ah dadkii in loo gurmado ama dadkii in la caawiyo ama dadkii in loo samafalo. hadda waxaan u taaganahay asalkii mushkilada inaan daaweyno maanta uma shirsan insaan filayo. waxaan u shirsanahay wixii ka dhashay dhibaato ah inaan u gurmano. sidaas daraaddeed ayaa Soomaalidu mar walbaba way isbixi jirtay, waxaan ku baxsan jirnay waa waxaan la yiraahdo social value-ga ama social capital-ka, waxa annaga laga dhawaajiyo ah isku damqashada iyo dareenka iyo ehelnimada iyo walaaltinimada oo ay asal u tahay diinta islaamka iyo dhaqankeena ay asal u yihiin. labadaasaan isku bixinaa, laakiin waxaan u baahanahay mar kasta ay naga dhammaato inaan gurmano ama aan biibaxa ka gurmano ama abaar ka gurmano way nagu soo noqotaa haddana. marka taas nafteeda inaan su'aalo iska weydiino ayay u baahan tahay. runtii waxaan ku xoojinayaa baaqayga intii iga horreysay ay ku xejiyeen dadka Ilaahay wax siiyey ee ganacsada ugu horeeyaan inay dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo oo dhammaanteen aan u istaagno. warbaahintana xoogga hadda waxay saaraysaa uun keliya arrimaha doorashada, laakiin inay ku soo jeediyaan dareenka dadweynaha u soo jeediyaan abaaraha oo shirkan iyo shirar lamida iyo sidii loo gurmo jiroo la yaqaano Soomaalida si isugu gurmo jirtay oo abaaraha isaga gurmo jireen oo biyo baxada isaga gurmo jireen. runtii inaan isaga gurmano waa loo baahan yahay iyada nafteeda oo aan mar kasta ahaano dad iskaalmeeya. oo hadda waxaa la sheegay prediction-ka ama saadaasha inuu roobka guga naftiisa oo yaraa doono, inaan roob doonka badino oo culummada iyo dadka waxgaradka ah iyo dadka ahludiinka intaba ay dadka ku waaniyaan inaan roob doonka badino si Ilaahay uusan nooga baajinin roobkaas guga oo aysan abaartu u gaarin macluul aysan u gaarin. inaan gurmadka xoojino runtii oo aan isku gurmano intii tabarteena ah. dalkeena hanti la'aan ma jirto, xoolo la'aanna ma jirto, deeq la'aanna ma jirto, laakiin maamulkeedii iyo maareynteedii iyo soo saarkeedii yaa naga maqan. hadda ka hor aniga waxaan la kulmay anigoo abaar u gurmanaya nin 5,000 oo neef ari iska leh, 5,000 oo neef oo ari oo haystaa, ceel oo biyo ka cabana ama barkad oo biyo ka cabana ma haysto. marka waa wax lala yaabo xoolaha intaas la eg qofkaas waxa uu ku qabanayo oo abaartiyaana ka laysay. xilligii abaarta aan la joogin ee aaranka la joogin wuxuu ka tabcaday xoolahaas ama uu kaga gaashaantay ma jirin. marka dad wax haysta waa nahay, dad hanti haystana waa nahay, dad dhiifoon oo wax istarana waa nahay. runtii hadda deeqaha laga sheekeeyey Soomaalida beesha caalamka laga filayo waxaa ka badan oo 500 bilyan ama 1 bilyan ku dhow deeqaha ka yimaada dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ama inta shaqaysato isgargaartay intaba oo waxyaalaha aan uga baxsanay oo aan uga soo harnay ummadaha kale ee dhibaatooyinka caynkan oo kale ay ku dhacaan. mar kale waxaan ka mahadcelinayaa ra'iisul wasaare shirkan abaabulkiisa iyo dadka ka soo qayb galay. waxaana ku dhiirinayaa ganacsatada iyo culummada iyo bulshada rayidka ay dadka indhaha ah iyo siyaasiyiinta intaba oo waxa meesha maanta dadka isugu yimid waa xooggii dadkii la dhihi jiray mala'a madaxweynta inaan gurmadkaas dhammaanteen aan u wada duubanno aan ka qayb qaadanno. waana ka curdaaranaya shirka oo in la fasaxaan rajaynaya. assalaamu calaykum.